ummadda Soomaaliyeed oo muxsiniinta iyo muxsinaadka ka codsanaya inay caawiyaan oo wax ay qabtaan oo gacan walaaltinimo ay sameeyaan. Cabdullaahi Xuseen Maxamuud waa 45 sano jir ku xanuunsanaya Muqdisho muddo 15 sano waxa uu noo sheegay xilli aan booqanay hooy uu ka degan yahay Muqdisho gaaran degmada Yaaqshiid in muddo 15 sano oo yahay sariiryaal isla markaana uu baahan yahay gurmad degdeg ah. Magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen Maxamuud bukaan Soomaaliyeed ah in badan xanuunsanay 2004 ilaa hadda xanuunsanay marka hore ciladan waxay qabatay lugaha waa iga laabmeen in badan kadib 2014 ina aad xanuunka ku soo batay nerves ay iga noqdeen qaybta dambe. Xanuunkan Cabdullaahi ka soo wajahay qaybaha hoose ee jirkiisa ayaa waxa uu ku sheegay inuu tagay isbitaalo kala duwan laakiin qaliin mar lagu sameeyay oo sheegay in isbedel uu ka dareemay xilligan uu baahan yahay caafimaad dhinaca dibadda ah. 2010 ayaa waxa lagu sheegay sabab qaltaan hooyadu isbedelan ku loo dhammaystirnayn markaas ilaa hadda sidii ayaan u xanuunsanahay. Wallahi in badan aan tagay haday safaarada haday Memorial Hospital ay tahay haday tahay ood weyne meel aan tagin ma jirto oo loo tago nervo intaasna wax kuma qaban karna ilaa hadda waxa ugu dambeeyay isbitaalkan Digfaar oo Turkiga uu joogo wax lagu ma qaban ka dhigeen warqado oo inaan wax laga qaban karin wadanka ay soo siiyeen marka waxa jiro kale aniga dukumeenti ribada caafimaad oo aan lahayn ayaan waxaan u dirsaday wadamanka caalamka wadamo kamid ah waxay jawaab soo bixiyeen in ay wax ka qaban karaan anna waa ii saamix weeyda dhaqaalihi aan ku aadi lahay wadaman dibadda. Cabdullaahi ayaa inoo sheegay inuu yahay 45 sano jir aan haysan wax caruura muddana uu yahay mid sariir u saaran xanuunkan ka soo wajahay inta ka hooseysa dhabarka waa sida uu sharaxay. Maya wax caruur iyo waxaas ima joogaan laakiin hore waa guursaday caruurna ma dhaqaaqa oo socda ma lugaan waa iga laabeen hatta ma soo fadhiisan karo waxa ay adag dhabarka iyo sanaa lugaana marka hore waa iga laabnaayeen marka hadda wadankan wax laga ma qabo ka dhawaadama leeyay waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaa inta alla wax siiyay oo wax qaban karto waxay qaban karto inay wax qabtaan. Adamadan magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen Maxamuud hadan lambarkayga raaciyo lambarkayga furuhu waa 5 eber 3 eber 2 223. isbitaalada ku yaala Muqdisho ee daaweeya cudurka neerfaha ayaa waxa uu sheegay in xilligan aysan jirin isbitaal la geeyay si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo laakiin waxa uu xusay in aan lagu guuleysan. Maxamed Xuseen Axmed RTN Muqdisho.